maalin ceenkee ah ayaa loo asteeyey 26 Juun. haddaba 60 sano ka hor maanta oo kale maxaa dhacay? weydiimaha iyo kuwa kale oo ku saabsan maalinkan ayaan muuqaalkeennan diiradda ku saari doonnaa. fadlan muuqaalka laaygaree oo la wadaag saaxiibbadaada. ku mahadsanid daawade. 60 sano ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii gobolladii waqooyiga Soomaaliya ee la oran jiray British Somaliland ay xurriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. maalmo kadibna waxa ay la midoobeen gobolladii koonfurta Soomaaliya ee la oran jiray Italian Somaliland. sidaasna waxaa 1 Luulyo 1960 ku samaysmay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo nabad ku naaloonaysa. magaalada Hargeysa oo xarun u ahayd maamulka gumaystihii Britain ee gobolladaasi toddobaadyadaasi ka hor maalinta xurriyadda waxa ay kooxihii xurriyadoonka ahaa ka wadeen diyaargarow aad u ballaaran oo ku aadanaa weynaynta maalinta 26 Juun. waxay dadkii ka qaybgalay maalintaasi ku tilmaameen maalin ay wada sugayeen dhammaan Soomaali weyn oo idil, waxaana dhammaan suugaanyahanada Soomaaliyeed ay ka sameeyeen suugaanno aad u fara badan oo ay ku cabbirayeen dareenkooda maalintan ku weyn quluubta shacbiga Soomaaliyeed oo idil. waxaana markaasi ay ahayd sannado kadib markii dhul Soomaaliyeed laga taagay calanka Soomaaliyeed weliba si xurriyada. dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dhammaan waxay u dabaaldegayaan 26 Juun. khaasatan dhalinta Soomaaliyeed ayaa sannadan 2022 u dabaaldegaysa weliba si qurux badan 26 Juun, walow cabaarana ay ka jiraan geyiga Soomaaliyeed, balse dhiiranaanta iyo daljaceylka ayaa ka weyn muwaadin kasta oo Soomaaliya. ila daawo qaar ka mid ah dhalinta hadda jirta muuqaalo dabaaldega oo ay soo geliyeen barahooda bulshada. دائماً عليو عالمكو إدل عليو لقا عزيني عليو أفكاغو شقيني عليو كلجين صبحة وحب الدنيا كلجين صبحة دونت الله تتكرح ونفتوى عانك بلوك ولا وكل منا يبدلك له خطبر الإيشاك وحديك له كلجين بالقعة باللوان جاري المولاها نقاري وقردنا حكبر عندنا كينا لحية 26 Juun waa maalin ku weyn quluubta shacbi weynaha Soomaaliyeed oo idil, waana markii gobollada waqooyi ay ka xuroobeen gumaystihii Ingiriiska, waana markii ugu horreysay oo dhul Soomaaliyeed calanka buluugga ah ee dhexda xidigta cad ee shanta gees ku leh laga taagay dhul Soomaaliyeed isla mar ahaantaana oo uu ka dulbabaday. ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. fadlan muuqaalkeena laaygaree oo la wadaag saaxiibbadaada. muwaadin kasta oo Soomaaliya waxaan ugu hambalyaynaynaa 26 Juun.